asalaamu calaykum, isku soo noqod wanaagsan. ibni aadanku waxa uu dhulka ku dul socday muddo aad u dheer. wuxuu sameeyey waxyaabo badan oo taariikhi ah, kuwa aan ognahay iyo kuwa aan ogeynba. wuxuuna soo saaray ama hindisay hal abuuro u wanaagsan nolosha. wayna adag tahay in la kala doorto siday u kala muhiimsan yihiin ama u kala wanaagsan yihiin. laakiin maanta waxaan idiin soo bandhigayaa 10 ikhtirac ama hindise kuwooda ugu muhiimsanaa uu aadanaha soo saaray inta uu dunida dul saarnaa. waa mawduuceena maanta, ku soo dhawow. intaan gudaha u gelin mawduuceena, haddii ay tahay markii kugu horeysay, saaxiib nagu soo biir oo subscribe taabo, videona like saar. aan ka bilowno nambarka 10aad. internetku waa hindisaha ugu da'da yar ee liiskeena ku jira. waxaana la sameeyey 1983. waxaa lagu sameeyey Mareykanka. saameyntiisu waxay gaartay meel walba oo dunida ka mid ah, wuxuuna isku xiray dunida oo dhan si aan horay u dhicin. internetku wuxuu abuuray madal nooc walba ah oo la iskula xiriiro, waxaana loo isticmaalay si fiican iyo si xunba. waxaana markii ugu horreysay isticmaalay jaamacadaha dalka Mareykanka si ay ugu fududaato xiriirkooda. kadibna militariga Mareykanka ayaa isticmaalay. intaa wixii ka dambeeyey, bulshada ayaa isticmaashay. ku dhowaad 5 bilyan oo isticmaale ayaa hadda active ah oo isticmaalaya internetka, sida website-ka Statista soo bandhigayo. internetka uma baahna sharaxaad badan sababtoo ah adiga ayaa hadda isticmaalaya. waxaa la hindisay qarnigii 5aad dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam ka hor. inkastoo badmaaxayaasha dunidu weligood bay isticmaali jireen xidigaha, haddana ma haysan wax caawimaad ah. habeenada daruuruhu jiraan, cirkanu xiran yahay, iyo marka dabaylaha xooggan socdaan. hindisahan ama soo saarista jiheeyaha wuxuu noqday mid taariikhi ah oo wax badan ka bedela safarka iyo ganacsiyada, kuwaa oo isku xirayay dad dhaqamo iyo diimo kala duwan leh oo dunida oo dhan ku baahsan. penicillin waa kiniini wax qalajiya. waxaa soo hindisay saynisyahan u dhashay Scotland oo lagu magacaabo Alexander Fleming sanadii 1928. waxayna sidaas ku noqotay dawadii ugu horreysay oo antibiotic ah, kaa oo wax badan ka bedelay caafimaadka ibni aadanka. penicillin waxa uu waddada u furay in la soo saaro antibiotic cusub. sidoo kale waxa uu tirtiray bakteeriya badan oo sababi jirtay infekshanno keena dhimasho. penicillinka waxaa la qiyaasaa inuu sabab u ahaa badbaadinta 80 ilaa 100 milyan oo qof. allah ka sako. 107 sano kadib, weli suuqyada caalamka waxaa laga isticmaalaa ama laga heli karaa penicillin. layerka oo hadda noqday mid la'aantiis aan la noolaan karin. injineero badan ayaa ka shaqeeyay inay soo saaraan layerka bilowga qarnigii 20aad. laakiin Thomas Edison ayaa abuuray qaab raqiis ah, adag, waqti badanna joogi kara sanadii 1879. Thomas Edison ayaa ku guuldaraystay 1000 mar inuu daaro layerkii ugu horreeyay, laakiin ugu dambayn waxa uu sameeyey layr qayb weyn oo muhiima ka noqday nolosha casriga ah. wuxuuna bedelay waqtiga uu soconayo maalinta oo markii hore ku tiirsanaa iftiinka dabiiciga ah ee qorraxda. taa waxay kor u qaaday fursadaha bani aadamka habeenkii uu ku qabsan karo waxa uu doono. matoorkan wuxuu ku shaqaynayay oomka. wuxuu imaaday dhammaadkii qarnigii 17aad, sanadu markay ahayd 1698. waxay si weyn u bedeshay kacdoonka warshadaha iyo safarka. waayo mashiinkan wuxuu ku shaqaynayay tareenada. waxaa la yiraahdaa matoorkan qarnigii 1aad waxaa laga isticmaali jiray Masar, laakiin waxaa la sheegaa inuu soo hindisay Thomas Savery 1698. la'aanta hindisahan lama arkeen gawaarida iyo diyaaradaha maanta aan aadka u isticmaalno. computer ama aaladda wax lagu xisaabiyo waxay taariikhdoodu u laabteen dhaxbartamihii qarnigii 16aad oo ay soo saareen filosofiya lagu magacaabo Blaise Pascal iyo Gottfried Wilhelm, kuwa oo soo saaray aalad xisaabeed. laakiin aabbaha kombiyuutarka cusub waa Charles Babbage, kaa oo soo bandhigay in la sameeyo aalad wax xisaabisa waxna qiimeyn karta. isku dayo badan oo la sameeyey laguma guulaysan ilaa laga soo saaro 1940yadii marka uu John von Neumann uu soo saaray kii ugu horreeyay. maanta kombiyuutarka ayaa ah aaladda adduunka oo dhan lagu maamulo. xitaa diyaaradaha iyo maraakiibta waaweyn waxaa socodsiiya waa kombiyuutarro caaqil ah. sidoo kale annaga ayaa haysanaa personal computers ama kombiyuutarka qofka oo meel walbo aan tagno u qaadano. waxaa jirta maahmaah ah in awoodda siyaasadeed ee ka dhalato afka qoriga ama xabadda.
mahmaadaas ha ahaato run ama been, laakiin ma jiro hindise ka weyn ee beddelay sida qoriga u beddelay dagaalka ibni'aadamka. xilliyadii hore dadku waxay isticmaaleen seefaha, laakiin hindisahan ayaa sababay dhimasho aan caadi ahayn. waa ay fududahay in la isticmaalo iyo in meel fog wax laga dilo. qoriga aan hadda isticmaalno wuxuu taariikhdiisa u laabanayaa China oo ah meeshii ugu horreysay oo wax qori u eg laga isticmaalo. AK-47 ayaa ah qoriga loogu iibsiga badnaa taariikhda, waxaana la iibiyey 40 milyan oo qori. waxaana sameeyey Mikhail Kalashnikov oo ka tirsanaa Sofiyetkii burburay. nambarka 3 waxaa ku jira birta loo yaqaano steel. birtan la'aanteed waxyaabo badan oo bini'aadamku sameeyey kuna faano soo saaristooda ma jireen. birtan waxay mas'uul ka tahay oo qayb weyn ka tahay teknolojiyadda aan isticmaalno, sidoo kale magaalooyinka horumarsan ee aan ku noolnahay. birtan waxay taariikhdeeda u laabanaysaa 4000 oo sano ka hor, waxaana loo isticmaalaa dhismaha iyo hubka, waxayna ka adkaysi badan tahay macdanta kale ee bronze iyo iron. nambarka 2 ee listiga hindisaha ugu saamaynta badan nolosha ibni'aadanka waa printiga ama daabacadda, kaa oo la sameeyey 1045. meeshii ugu horreysay ee lagu isticmaalo waxay ahayd Shiinaha. daabacadda ayaa fududaysay inay faafto fikradaha iyo dhaqamada cusub. printiga la'aantii waxaa adkaan lahayd inayna soo gaaraan qoraalka dadkii hore ama cilmiga sida diinta iyo sayniska iyo sidoo kale taariikhihii hore. nambarka 1 ee listigeenna waa gaariga ama baawurka. gawaarida ayaa soo maray wejiyo badan, waxaana jira hindisyo badan oo gawaarida ah oo sii horreeyey. haddana gawaarida aan hadda isticmaalno waxaa la hindisay sanadii 1886, waxaana hindisay injineer makaanig Jarmal ah oo lagu magacaabo Karl Benz. markii ugu horreysay waxa uu sameeyey gaari 3 lug leh oo gaas ku shaqeeya, wuxuuna ahaa kii ugu horreeyey ee noociisa ah. inkastoo 5 sano kadib uu sameeyey gaari kale oo 4 taayar leh. sanadu markay ahayd 1900, warshadiisa Benz ayaa noqotay tan ugu soo saarka badan gawaarida dunida oo dhan. 10kaas hindise ayaa loo arkaa inay ahaayeen 10kii hindise ee ugu waaweynaa ama ugu muhiimsanaa ee ibni'aadanku sameeyo taariikhdiisa. haddii ay jiraan kuwa laga tegay oo maskaxdaada ku jira, fadlan nala wadaag oo ku soo qor dhanka hoose ee commentiga.